Bismillah. Waxaan ku soo koobaynaa qodobada afka Soomaaliga. Qodob maxaa laga wadaa marka? Waxaan u baahanahay inaan ogaano waxa laga wado qodob. Qodobku waa erey ama xarfo ka mid ah qaybaha hadalka ee afka Soomaaliga oo xagga dambe ka raaca magaca si loo garto magacu wuxuu yahay. Qodobku wuxuu muujiyaa ama inoo sheegaa in magaca laga hadlayo uu yahay mid qofka la hadlaya iyo qofka hadlayaaba ay isla garanayaan oo isla yaqaanaan. Marka qodobku wuxuu inoo muujinayaa in waxa laga hadlayo uu yahay wax la isla garanayo oo la isla yaqaano. Sidoo kale qodobku wuxuu muujiyaa dhihidda iyo dhawaaqa ereygaasi midka uu yahay ama midka uu noqonayo hab dhawaaqiisa. Tusaale ahaan inuu yahay ereygaasi erey lab ah ama erey dhadig ah. Marka aan leeyahay labka iyo dhadiga ma ahan inay nin iyo naag yihiin ee waxaa laga hadlayaa sida loogu dhawaaqayo ereygu inuu yahay erey lab ama erey dhadig. Hanaankan ayaa ah mid afafka oo dhan ay wadaagaan. Haddaba toddobada qodob ee af Soomaaligu waa kuwee? Toddobada qodob ee af Soomaaligu uu leeyahay qodobada afka Soomaaligu waxay u qaybsamaan kuwa raaca magacyada labka ah iyo kuwa raaca magacyada dhadiga ah. Marka aad leedahay magacyada dhadiga ah ma ahan inay naag kala yihiin magacyadu, laakiin waa dhawaaqa sida loogu dhawaaqayo saan hore usoo sheegnay. Magacyada sida loogu dhawaaqayo ayaa waxay u dhawaaqayaan sida in dhadig laga hadlayo ama in lab laga hadlayo. Marka magacyadaas ay noo kala sheegayaan waxay noo kala cadeynayaan nooca ay yihiin qodobada raacaya. Tusaale ahaan waxaa jirta 7 qodob saan hore u sheegnay waa 4 lab ah iyo 3 dhadig ah. Magacyada labka ah waxaa gadaal ka raaca qodobka ka iyo ga iyo a iyo ha. Afartaas qodob waa lab weeye waxay raacaan magacyada labka. Magacyada dhadigana waxaa gadaal ka raaca 3 qodob ee kala ah sha iyo ta iyo da. Waxaase dhacday in magacyada qaarkood ay ku dhammaadaan dhawaaqyo isbedela marka qodobku raaco. Sida tusaale ahaan oo kale waxaa magaca beel, meel ama dabayl raaci kara qodobka sha waxay noqon karaan beesha, meesha, dabaysha. Shaqalka ama shibanaha la ee u dambeysa magaca beel tusaale ahaan meeshu ka baxaya waxaana raacaya sha waxay noqonaysaa meesha. Qodobada magaca gadaal ka raaca tusaale ahaan magacyada labka ah ee gadaal raaca waxay noqon karaan mas waxay noqonaysaa maska, wiil wiilka, guri guriga, gabow gabowga, fure furaha, cune cunaha, qare qaraha, bare baraha. Magacyadaas waa kuwa labka ah. Haddana waxaan gelinaynaa kuwa dhadig ah. Magacyada dhadiga ah waxay noqon karaan tusaale ahaan loox looxa oo a baa raacday xarafka ama shaqalka guduudan fiiri looxa uu noqonayaa sac saca uu noqonayaa waa halka shaqal baa raacaya gadaal ka raacaya oo ah qodobka inoo sheegaya loox inuu yahay wax la isla garanayo iyo waxaan la isla garanayn inuu yahay. Libaax libaaxa, gacan gacanta, mindi mindida, cadho cadhada, haad haada, samo samada, dhalo dhalada, il isha iyo ul usha. Marka haddii si fiican ugu fiirsatid xarfaha hore waxaa raacaya shaqalka a oo ah qodobka gadaal ka raacaya sida loox looxa oo kale. Waxay noo gacanta oo kale ta baa raacday, mindi waxaa raacday da, ul waxaa raacday sha. Kuwaas tusaale kale wiilka gacanta qabowga yuusan u bixinin. Marka waa fiiri waa jumlatan tusaale ahaan wiilka yar gacanta qabowga yuusan u bixinin. Wiilka waxaa raacday ka gacanta waxaa raacday ta qabowga oo ga raacday yuusan u bixinin. Marka waa saas oo soconaysa. Furaha guriga ha ilaawin meesha tuug baa buuxdee. Tusaale ahaan waxaa inoo furaha ha baa raacday guriga ga baa raacday ha ilaawin meesha waxaa raacday sha tuug baa buuxdee. Marka jumladu saasay u raacaysaa furaha. Saca libaaxa ka ilaali cunaha yuusan ku dhegin. Fiiri hadda saca libaaxa ka ilaali cunaha yuusan ku dhegin. Marka xarfaha guduudka ama casaanka waxaweyaan waa qodobada raacaya. Mindida qaad oo hilibka ku jar. 7 qodob ee aan soo sheegnay baa haddana jumlad la geliyay ama word la geliyay.
magacyada haddii wadar laga dhigo magaca yani keligii ahaa wuxuu isku bedeli karaa lab hadduu markii hore ahaa wuxuu isku bedeli karaa dhadig. tusaale ahaan midkii qodobka labka la socday haddii wadar laga dhigo wuxuu isku bedeli karaa mid dhadig ah. tusaale haddaan usoo qaadano fure wuxuu ahaa lab, ha baa la socotay, wuxuu isku bedeli karaa furayaasha. geenyada waxay ahayd dhadig, da baa la socotay, waxay isku bedeli kartaa geenyooyinka. gacanta waxay isku bedelaysaa gacmaha. libaaxa wuxuu isku bedelayaa libaaxyada. beesha waxay isku bedelaysaa beelaha. fiiro gaar ah yeelo haddaba. qodobka ha wuxuu raacaa magaca shaqalada e iyo o ay u dambeyso, oo inta badan 90% wuxuu qaataa ereyada ay e u dambeyso, halka qodobka sha uu raaco magacyada shiibanaha la ay u dambeyso oo keliya, wax kale ma raaco. saas aad ogaanaysaa. qodobka a inta badan wuxuu raacaa xarfaha a iyo xa iyo qa. way dhici kartaa inuu kuwa kala raaco, laakiin 90% asna wuxuu raacaa xarfaha saddexdaa shiibane ee u dambeyso. tusaale haddaan usoo qaadano qiiq wuxuu noqonayaa qiiqa. sac wuxuu noqonayaa saca. foox wuxuu noqonayaa fooxa. marka yani ereyada noocan oo kale ah ee qa iyo ca iyo xa ay u dambeyso ayuu inta badan raacaa, laakiin kuwa kale way dhici kartaa inuu raaco. marka laakiin waxay kaga duwan tahay inta badan eedaas waxaa qaataa xa, sida tusaale ahaan wadne, wadnaha, bare, baraha, saasoo kale ayay u qaataa. okay, waxaa isku daydaa marka inaad layliga kasoo jawaabto, oo waxaad samaysaa ereyadan waxaad ku daraysaa qodob. tusaale ahaan foox, qoor, meel, lug, beel, cid, ciddi, bare, qodob baad ku daraysaa. kuwan kalena waxaad ka reebaysaa qodobada la socda. tusaale ahaan booca, saca, boogta, wadnaha, usha, lo'da, geenyada, guriga, kuwaasna waxaad ka reebaysaa qodobada la socda. waa mahadsantihiin.